بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو أنور سلطان محمد ظاهر سلطان الشيخ عبد الله مرسل وحنا هاي مواد نقول الشيء دولة ديجان كصومالية إثيوبيا عنقو ولبا خاصة مقالة الراسو عنقو وضياشة كسو كذا دقمة الراسو أما تشاليدا باش رافق عمر قبل ك بس ريورتلان إسفارية مقالة يتبوري وحن توني إن القهر لأنه أرهن عدالة دراه وكرد عضي مالين دويتو مقالة تكتيكا شركة حسبيكا وحن دوني إن نشيغو مدحويناه مصطفى أرهير ونورقنو أرهن عيرين ونورقنيني خلطهاي عدالة درايتي حويا مصطفى شالي مركو يمني ماشا wuxuu cabdi ilay lahaa wuxuu wadaa waa dulmi cad oo cadaalad darraa laakiin mustafa waxaanu 6 sanadood gaarsiinin cabdi ilay ayuu 6 bilood ku gaarsiiyay isagu qabyaalada meeshii ugu sareysay maraysa maanta waanu ka xunnay hadaan nahay odayaashii reer raaso waanu ka xunnay dulmiga cadaalad darrada lagu qaybiyay xisbiga iyo sharci maxaan ku wadaayay sida loo qaybsaday waa xaq darro waa cadaalad darro arrintaana waanu ka tashanaynaa waanu ka xunnay waxaanu sheegaynaa oo iga baaqa haddaan dib la isugu noqonin oo arrinkan aan wax laga bedelin cawaaqib xumada ay la iman doonto mustafa waa adaa dusha ku qaadanaya iminkana waxaan ku soo dhawaynayaa odayaashii magaalada oday banqaasi bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuhu sida suldaanku uu sheegay iyo jaaliyadda guud ahaanba waxaana anagu jaaliyadda Gothenburg iyo Tabari raafiq Umar shirkan maanta aanu isugu nimid inaan kaga hadalno sida aanu aragno hawsha kililka ka socota guud ahaan waxaan maanta cabiraynaa aragtidanada iyo fikirkanaga ayaanu ka cabiraynaa meeshan aragtidu way ka ballaaran tahay xubno xisbi oo hadda la qaybiyay aad bay uga weyn tahay madaxweynaha anagu waxaan ka rajaynaynay inuu bulshada kililka ku nool dhammaanteedba wax la taaban karo oo isbedela uu keeno ma doonayna anagu inaanu cambaarayn madaxweynaha u hormarino laakiin hadda aragtidanadu waa codsi weeye cadaaladda kililku ma baahna 2 beelood iyo 3 beelood oo xuquuqdooda helo uma baahna cadaaladda kililku waxay u baahan tahay ummadda kililka ku nool xuquuqdeeda wada hesha ayay u baahan tahay oo qof waliba uu helo xaqiisa in yar hadii la yara hagaajiyo la beelhebla xaqeedii la siiyo oo beelaha kale ayna helin de walaalka biyaha uu cabay adigu kuma oonbaxaysid marka cadaaladda aan u baahanahay way ka weyn tahay xubno xisbi oo 2 iyo 3 oo la siiyo aad bay uga weyn tahay madaxweynaha waxaan codkiisa ka maqlayay inuu yiri intii ugu wanaagsanayd baanu meesha keenay waa runtii waa laga yaabaa intii ugu wanaagsanayd laakiin intii ugu wanaagsanayd oo beel u keenay beelaha kala dadkoodii wanaagsanaana in la keenan doonaynaa madaxweynaha waxaanu si sharaf leh oo karaamo lagu codsanaynaa isagoo ka muuqata karaamo inayna taariikhdiisa iyo mustaqbalkiisa iyo awlaadiisa u gelin cadaalad darro oo ka fakara in cadaalad isaga dan u tahay anaga dan noo ahayn haddii isagu uu cadaalad darrada ku socdo anigu waxaan u cadaynayaa in cadaalad darradu isaga dhibaataynaysa anagana dhibaataynayn waayo أول روا النولا ولا سعودي أو شوي سعودي مركا قفك عدالة درها السماية أي تاريخ دي سجليسا بعدالة درها سكسر نقنيسا ومدى كل كدقن وضرهان وحبوا هنتاي عدالة يمدنمو هي حقوق وسيستم الله وقيبيه هي نظام كا معناها إنه هذا جروب يرينتو إسرائيل هذا أنا قعدت كمثله إنتي كره هذا شأنه خلط بنورقنا آديات بان وقحنا هاي أنت هسان كوجا جبينيا وحنو ديبيا أستاذ محمد وعدي بانو ديبيا أنا وحنفرينا إن دي بلور نقضه وعدالة يو من ماذا يو وناك أمضى سيد اللغة ترين لها لقى فكر أو حياليو عند الحادث كيه مسرحية ده عرورته كرنا يسوي وحيوان وحاجات إن وحاول يسكع مصدا تاين الأمة كوكان عين بنا نقول شيء إن أمة حكوكان عيسى وحسنا يعدالة يمنمو يوناك كوكان عيسى بسم الله الرحمن الرحيم aad baan marka hore sida odayaashu ay sheegeen baa aanu shirkan u joognaa marka anigu kulay shakhsiyan
haddaan taariikhda dib u yar celiyo arrintan dadka ay reefiqa cumar ama beeshan raasa degan ay tirsanayso ee cadaalad darrada waa wax soo jiitamay wax maanta kaliya bilaabay maaha 27 sano ee waddanku jiray yacni dhacdooyinka iyaga gaarka u ahaa waa kuwo aan ka dhicin deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kale Soomaalida waayo ummad dhulka Ilaahay uu ku abuuray ee ay deganeyd laga sheegtay oo ka guurtay oo hijro ka qaadatay waa markii koowaad ay dhacday colaado iyo wax badanna uu soo dhaxmaray dadka ehelka ah marka haddaan in yar dib u noqdo markii madaxweyne Mustafa yimid odayaashii Addis Ababa ay ku kulmeen ugu horeeyay waxay u sheegeen in arrintani arrin u baahan tahay arrin culus oo u baahan tahay in sideeda mawduuc xal u baahan oo deegaanka ka jira in ay tahay in la xalliyo waday tahay dib u heshiisiin dadka walaalaha iswada dhalay ee isla deganaa ee aan la garanayn midkood wax awsha yani ku soo khilaafka ka dhaxeeya in la xalliyo in dadkan uu madaxweynuhu intuu la fadhiisto bal waxa xuquuqdooda iyo uu dhageysto ballan buu ku qaaday bay ahayd laakiin sidii ma ayna dhicin marka imikana waxaan leenahay arrintani waa sida uu ninkan igu horeeyay Maxamed sheegay waa arrin ka weyn xisbi la qaybiyo iyo xubno la siiyo wax anfacay keenaysa ma jiro waxaan ognahay inay wiigadan iyo maalmahan uu geedi socdo oo dad deegaamadii ay deganaayeen ay weli barakac ka socdaan sagaag baa kamid ah dhagaxmadow baa kamid ah oo geedi u socdo dadka guurayaan maxaa loo guurayaa maxaa dadkan dalka looga sheeganayaa halkani arrin u baahan weeyaan arrin u baahan in xukuumadda deegaanka oo dhan xisbigeeda kulli waa laga wada warqabaa gudoomiyaha xisbiga Axmed Shide wuxuu ka mid yahay dadka sida aadka u og xaaladan xataa marar uu shaqaale ka ahaa uu xafiiska arrimaha federaalka daraasad buu ka sameeyay shakhsiyan ah daraasado badan oo laga sameeyay jira waxay taalay House of Federationka wax badan baa leeyahay arrintani waxaas oo dhan kama imanaysa dadka Soomaalida ah ee ehelka ah ee waliba labadan beelood ee wax kala sheeganaya ay xalka gacantooda ku jirtaa haday tahay siyaasiyiintooda haday tahay xisbiga haday tahay xitaa kuwa ururka kale ee ONLF intaas oo dhan oo isu tagtay bal dadkan in arrintan shirweyne inta la qabto laga wada hadlo oo si cadaalad ah iyo xuquuq ah oo walaaltinimo la arrinta lagu dhameeyaan kula talinaya waxaan u rajaynayaa madaxweynaha inuu arrintan sahlan ee uu ka fikiro u arko inay mawduuc weyn tahay oo u baahan in xal laga gaadho macnaheedu haddii boogta korka laga dhayo xal ma imanayo arrin taagan yani taariikh fil abad waa markii koowaad ee ummadalkii ay ku dhasheen ee abiya ka Israel deganaayeen laga sheegto oo ay ka barakacaan waa markii koowaad ee dagaal qabiil maalin buu dhacaa oo lagu kala tagaay 10 sano dagaal colaadeed oo dad walaalihii socday oo dawlad urur mucaarad ah shacab cid waliba ay ku lug lahayd oo wax looga yahay oo wax yani caam ah waxaasoo dhan in la xalliyo oo dhibaatooyinka waaweyn ee deegaanka ka jiray sidii tii ONLF looga gaadhay nabad ee loo xalliyay ee tanina la mid tahay in arrin weyn uu arko oo uu u soo fadhiisto oo waqti siiyaan ka codsanaynaa hadduuna saa yeelin waa waxba meesheedii bay ka sii soconaysaa yani hawl meesheedii ka sii soconaysaa marka waxayna ila tahay inaan aqoontaan u leeyahay madaxweynaha iyo inuu nin fiican oo qalbi fiican yahay arrintan marka waxaan u rajaynayaa inuu u fikiro aniga marar badan inaan waan ka soo maqannahay waddankii laakiin talooyinkan ku siinayna waxa ka mid ah arrintan inaad si weyn u eegto dib ugu fadhiisato xataa maalmihii dhoweyd markaad kormeerka ku maraysa gobollada nagob yani waxa fiicneed inaad iyagana kor istaagto oo u tagto aad dhageysato bal baahidooda waxay qabaan aad dhageysato waxaan ognahay xitaa mashaariicdii ka horreeyey ee ninkii dhibaatada badan dadka ku samaynayay uu xitaa uu waxbaan ka bilaabi yidhi meeshii inay ku baaba'een oo biyogelintii baa ka mid ah korontadii baa ka mid ah waxba kama jiraan marka waxaan ku rajaynaynaa khayr waxaan ku rajaynaynaa inaad eegto waana mas'uuliyad ku saaran diiniyan aqliyan Soomaalinimo muwaadinimo mas'uuliyad mid inta way ka saaran tahay waana mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh